muuqaalkan waxaan idinkugu sharxi doonaa creating domain user accounts taasoo ah in la abuuro account user oo leh username gaar ah iyo password kaas oo aad ku soo kicin kartid ama aad ku furin kartid kombiyuutarka ama serverka ama clientska goob waliba oo aad ka joogtid. sidoo kale ciwaanka xiga waxaynu ku baran doonaa allow login locally balance in qofkaasi okolaansho la soo siiyo habka uu soo furmayo ama okolaansho laga soo siiyo in uu markaasi serverka ka soo furo akoonkiisa ama user ahaan uu u soo galo. ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa go markaan u baahanahay creating domain user account in aan anigoo isticmaalay user kale aan soo gali karo serverkii aan u shaqayn karo as a server ahaan ama aan u soo gali karo user caadi ah. marka waxaynu ku bilaabi doonaa insha Allah creating domain user accounts. ugu horeyn waxaan soo kicinayaa administratorkii ama maamulkii markaasi network waxaan ku bilaabayaa in aan soo geliyo passwordkii. markii uu soo furmayo serverkaadii ugu horeyn waxaad ku bilaabaysaa creating domain user accounts in la abuuro user account. markiina abuureyno ugu horeyn waxaad soo furaysaa start buttonka waxaad isku aadinaysaa administrative tools then waxaad dooranaysaa active directory users and computers. marka aad dooratid waxaad right click ku dul leedahay users waxaad leedahay new kadib adigoo dhinaca midig u wada muuskaaga waxaad keenaysaa user waxa la abuurayo waa new user. markaad ku dhufatid new user waxaad qoraysaa userkaasi magaca uu leeyahay annagoo ilaalinayna sharciga buuka waxa uu qorayaa user 1. waxaad u soo degaysaa qaybtan hoose login name magaca uu ku soo furan karo waxaad leedahay oo keliya user 1. then waxaanu gudbaynaa in aynu dhahno next. caps lock ayaa shidan waan dimiyey password u yeel ayuu dhahayay waxaana haysta sharcigii ahaa markaasi default password policy sharci ah ayaa yaala in passwordkaasi ay noqdaan kuwa xuruuf punctuations iyo numbers isugu jira. marka hadda waan qorayaa markaan intaasi qoro waxaad jeeka ka qaadaysaa user must change password. next login waxa waaye haddii uu qofkaas meesha du saartid markuu soo furayo akoonkiisu waxaa lagu amrayaa in markaasi aad bedeshid passwordkaadii. marka waxaad leedahay user and password never expires passwordkan u suubiyey weligiis ma dhici doono kadib waxaad leedahay next. after that waxaad sii leedahay finish. haatan waxaan halkan ku abuuray user markaasi la yiraahdo user 1. markan waxaan u gudbayaa ciwaankeena labaad oo ahaa allow login locally in qofku loo ogolaado in uu soo kiciyo ama uu kici markaasi uu furaa akoonkiisa isagoo isticmaalaya magaciisa user 1 ahaa iyo passwordkii u gaarka ahaa. marka anigoo ku dhex jiro serverkii waliba qaybta administratorkii ayaa waxaan soo furayaa start buttonka waxaan isku aadinayaa administrative tools waxaan sii dooranayaa group policy management. markaan doorto waxaan u gudbayaa in aynu soo furno forestfarah.com waa markaasi serverkeeni magaciisa guud blaska gadaashiisa ah. kadib waxaad sii furaysaa domains
waxaad sii furaysaa farax.com. waxaan soo furiyaa domain controllers falarteeda. kadib waxaan right click ku leeyahay default domain controllers policy. waxaad leedahay edit. then waxaan u gudbayaa sectionka labaad oo ah in markaasi aynu raadino qaybtan u baahnayn. waxaad soo furaysaa policies. waxaad sii furaysaa Windows settings. waxaad falarteeda sii furaysaa security settings. kadib waxaad sii furaysaa local policies falarteeda. waxaad ka dooranaysaa user rights assignment. kadib allow log on locally ayaad raadinaysaa. allow log on locally ayaa waxaad ku leedahay double click ama waxaad ku dhigi kartaa right click. kadib properties waxaad dooranaysaa add a user or group. waxaad sii leedahay browse. then waxaad leedahay userkii aad u baahneed magaciisa geli ayay ku leeyihiin waa user 1. waxaad leedahay check names. waxaa soo baxay user 1 oo laga abuuray farax serverkii la dhahay. kadib waxaad u gudbaysaa markaasi in aad dahdid okay haddana kadib apply kadibna okay. hadda waxaynu soo ogolaanay in userkii user 1 ahaa uu soo kali karo ama uu soo furan karo computerkiisa. waxaan tijaabinayaa in aan userkaasi soo kiciyo anigoo soo furaya markaasi intaanan u gudbin waxba. markaan soo xiro dhammaan waxaan suubinayaa gp update wax la yiraahdo taasoo ah in markaasi refresh loo diro policy ama policygii wixii aan ka bedelay uu computerku u aqbalo. waxaad leedahay Windows or waxaad qoraysaa oo keliya gb update. kadib waxaad leedahay okay. kadib waxaad iska leedahay close. waxaynu furaynaa start buttonka. kadib waxaad leedahay log off. after that waxaan isku dayaa in aan soo kiciyo userkii aan abuuray anigoo furaya qaybtan other user la yiraahdo. waxaan qorayaa userkii kale ee aan abuuray magaciisa wuxuu ahaa user 1. passwordkiisana wuxuu ahaa. kadib waxaad leedahay log on. of course hadda wuu shaqeeyay